guurku horta kii hore iyo midka dambe markaan barbar dhigno ra'yi ahaantayda waxaan qabaa 99% inuu fiican yahay guurkii hore. guurka sidiisa ciyaar maahan dhalinyarada guurkooda ee fududeystaan oo darbiyada micnaha ay arrimahooda ka dhamaystaan oo kale misana ay ku kala tagaan horta kaas awalaasan guur la dhihi karina aaminsanahay aniga waxaadan familkaaga u sheegin ama aasan kuu soo sacbaxsanayn kaas horta ani guur ma wadi karaba kulama wadi karo kulama wadi karo sababtoo ah guurkii hore wuxuu ahaa guur maaragtay dad isku qalbiya isku ra'yiya isku maaragtay isku deegaan ah inay markaasi israadsan jireen. wallahi walaalkayga fikradiisa aniga waan ka duwanahay farxiyo ahaan waxaan aaminsanahay guurka maanta jira in uu wanaagsan yahay taasay tahayna waxyaabo badan aan ku dhaliilaa guurkii horena woo jira lama qabi fikradaas walaalkay. okay sax weeye casrigu iyo horumarku horta waa meeshiisa balse guurkii hore wuxuu ahaa guur maaragtay ninka iyo naagtu aysan ka ahayn wax maaragtay iska ciyaara ama wax fudud. guur horta marka la yiraahdo sidiisu wax fudud ma aha kumana sii jiraan dadkii hore guurku wuxuu la ahaa wax culus la ah ninka xataa marka gabadha la siinahayo waa qarqari jiray waa dhuuma jiray guurka dhibaato la ahaan jiray culaysu la ahaan jiray miisaanka wuxuu la ahaa aad adigu aan hadda aanan anaga qiyaasi karin oo culays saa'iduhu la ahaa. guurka maanta jira waa guur khafiif oo waxaad arkaysaa wiil baa gabar guursanahaya wuxuu leeyahay walaalay waa ku jeclahay aad baan kaaga helay xaloo dhan ma seexan raashin kuuma cunen gabadhiiu ku beerjilacsanahaya waa guursanahaya amaba wuxuu leeyahay walaalay anigu maaragtay wax awooda ma hayo gabar ma hayo inaan ku guursan rabaa gabadhii meeshii ninkii rajo ka qabaysa aaday u jeclaanaysaa waa guursanahaya dhab labadood beriyo meelahaas la warwareegaya wuxuu ku leeyahay walaalay anigu tabar ma hayo awoodna ma haye waxaad samaynaysaa bal meelahaaga gabadhii waxaa laga yaabaa inay meesha uur ka qaato inay dhibaato badan fara marto inay asagii raadiso xataa ay ka kari weydo kaala cidda yada u tag. horta guurku sidoo walaalkayga Saciid uu sheegay guurku waa qiimo aad u weyn guurku sidiisa ciyaar maahan marka waxyaabaha kale uu ku dhaliilay wuxuu ka dhawaajiyay in ay tahay in micnaha dhalinyarada guurkooda ee fududeystaan oo darbiyada micnaha ay arrimahooda ka dhamaystaan oo kale misana ay ku kala tagaan horta kaas awalaasan guur la dhihi karina aaminsanahay aniga waxaadan familkaaga u sheegin ama aasan kuu soo sacbaxsanayn kaas horta ani guur ma wadi karaba dhaliisha haddana ay kitaaba fudeedkaas laakiin aniga ma aaminsana maanta in aan fudeed ee dhalinyarteena ay ku dhaqmayaan guurkan anaga agteena waxaan aaminsanahay inuu qiimo weyn ka joogo.